درعي وقف صدينا قبل استيشن قال يكحي أنا ودرعي ديك خو استيشن كحنا درين اسبتال كان يسوى باري كدب استيشن كان يوسو عليه dadka stationka waxay bilaabeen inay ifquuqaan maxkamada ligay intaas soo jeer u kulaanay haddana ugu dambeyn ninkiisa ogaa ii galaa la fasaxay da'deedu waa 16 jir waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga Dadaab waxaan rabaa inaan ka hadlo qisiyo ku dhacdani maalmaha kamid ah waxaa jirtay anoo iskuulkii waxaa ii imaatay gabar aan asxaabeena isgarnaynay iskuulka sil dhiganayna waxay dhahdeen aroos aadeenaan mari hay'adaha waa israacnay gabadhi markaa israacnay gaariga isaartay gaari markaa aan kornay waxayna geysay meel hotel ah waxaan soo cunay jibsi kadib markaa soo laabanay waxay geysay guriga markay geysay waxay dhahdeen gurigan arooska ma ahan laakiin uu dooyahay ala intii ku soo dharaan u doona hay'adahan bartaan ku suga waa ay soo laabatay iyadoo biyo wado markaas waxay dhahdeen dharkan uu doonayo biyaha arooska ka soo qaaday si cab hay'adahan biyo markaa cabay waa wareeray kadib markaa istaagay waxaa arkay daaqad furneed waxa ka arkay wiil asoo albaabka si xiraa kadib waa soo kacay albaabka kor ka qataarnaa gacantan galiyay kadib wiilka imaaday way iga fureen waxa ku leeyahay bani ciidana rabay inaa aadee marka hore maxaa inta ku keenay u dhahay inaan kula hadlaaro soo fariisay dii kala iska barnay wiilku ma garanaysa wiilku waa garanay aqoonaan u lahaa kadib aan mas xanaajiye waxaa dhawaan bixi mindii soo qaatay wuxuu dhahay dib u laabaa dii kala aad ku taala oo ku dhigay gacantiisa ku dhigay madaxa gacanta ay qabtay wuxuu ugu dhuftay sarrto madaxa ugu dhuftay markaas amiir ugu dambeysay waxa soo kacay aminay teeshan saaxiibinimo anoo zaid u dhiig baxay marka hore ma ka saaciday marka hore waxay 12 meelahaas oo galab ah waxa soo kacay anoo zaid u dhiig baxay kadib markaas soo fariistay oo intii asaga sarri agteeda fadhiye oo soo kacay wuxuu dhahay maxaa weynaysaa maxay ugu dhacaan caadi waayo aan waxa is xanaaji marka kadib mindii soo baxay wuxuu dhahay sheegtaaday ku taala hay'adahan waxa ma sheegay abo ifasax bis cidaan leegi hay'adaha uu baxay wiil la hadlay albaabku istaagay iga fogaadani wiil la hadlay bacd wiil mootaala imaado wuxuu dhahay soo kac wiil ku qaaday rabay wiilku soo qaaday wuxuu geeyay gabadhii guriga ay keentay gurigeedii u geeyay gabadh markii gabadh gurigooda geeyay gabadhii aan macnaha wareystay markii gurigooda la keenay waxa hadda habeen waayo ila soo kacda laga yaabaa نصيحة لو نصيحنينا نصيحة نصوحدي ورستة وحيد هذا ملك سحيدة أنا حتى ما شاف اللي قصوا برصة ده ولا لبي أنا ماشي إنك صوب حدا وملينا أيوة هاي عند زي وديك بحبة محاصم يعدينا ما يعدينا آذنا إذا أنا كنيني هالكسينا لحية برمك كون معطانا عادر عدينا آذي وحدي أبتقى دوك ويديو وحدي قبرة صاحبنا اللي جوبني هاي عنده wiilkii saa uga u sameeyay habeen walba iimaana kaniinyaal u keenay gabadha waxay dhaysaa gabadha saabta lagu qarnay meesha ku celin gurigaas la igu celinay kaniinyaasha la siinay cideeno iraadinayna imaadan halkaas cideeno gabadha aabaheed wuxuu ku dhahay gabadhayga ma baxaan u dhahay gabadhiin hadda idinka baxdo idinka inta la gurigayga ii dhaafa bas waa baxaan habeena kale taadana soo laabteen habeenka adana isla sida camal ku dhahay subaxda waxay maat marka gabar walaasheeda ay barteeda dhashay ay maatay gabadhii isla hadleen jikada u gashay aan qolka ku jira gabadhii markay baxday walaashii gabadhii ordaysa qolka u soo gashay waxay walaasha way baxday gabadhii soo laabat marka anina waxay dhahday carr furash gadaashiisa gal furaashka meel galkiisa gadaashiisa xataa ma furash galkiisa gal kadibna way soo tiirsay way laabatay walaashii baa ku soo istaagtay waxaa ay banayna gala raba weydii guriyeen maxaa ka doonay dhahay waa iska daba tuurtay walaashii guriga ii raadis iyada meesha iga soo bixisay way soo wada cideena ay keentay okay bal lixda bari ee qarinhay reerkiin way ka warqabeen inay maqahay wala loo raadinay ma ood habeenaha meesha imaadana ogaaday in la raadinay
maxaad adiga laftaada usoo bixi weyday oo isku banaanka ugu soo bixi weyday waxay qof dhiig baxaya mana socon karin ani marka ma cabsi baad qabtay haa maxaa qabtay gabadha waxay igu dhahday wiilkii waxay igu dhaheen abtigaaga hadaa ku laabatid in lagu dilaa laga yaabaa in lagu xiraa laga yaabaa waxa kastaa dhici karo gurigana kasoo bixin intaa ilaa intuu dhiigka istaagayo ka bogsanayso haa marka lixdaa beri ma helaysay tabiib iyo daawo iyo daryeel ma helaysay lagu kufsada wala qabay daracay igu kufsadeen qabay marka maxay isla tahay sababta ay wiilka sidaa kugu garan maxay tahay saaxiibtan ku shaqoolaysa maxaa malaynaysaa wallahi ma ogi aabaa aabbihi weligeyba ma arkin hooyo kusoo aawodii isoo karstaan iyo habartee aabbihi hooyo kala tageen haa kadib maxaa dhacay reerka waa lagu soo helay waa lasoo helay gabadhii isoo wada cidda ay keentay stationka iyo kaxeey anoo dirci dhiiga qabo stationka waxay noo direen isbitaalka lagu soo baaray kadib stationka lagu soo celiyay dadka stationka waxay bilaabeen inay fuquuqaan maxkamadaa la geeyay intaasoo jeer ku laabanayna haddana ugu dambeyn ninkiisaa ogaa iyo galaa la fasaxay marka cadaalad darrad marka tirsanaysaa waxaad tirsanaysaa cadaalad darra ani waaday fuquuqa xaq malii miya mise waa isdilaani go-aanka maxkamad soo aragtaa go-aanka maxkamadda wax iqanciy ma aha horteeda intuu soo maray intaasoo jeer iyo haddana la ii xukmi sabab wiilkii wali waa jooga wuu joogaa marka waxaa codsanayaa inaan xaqayga la iisoo dhiciyo intaasoo dowladaha adduunka ku nool dowladaan ay dhahayaan xaqayga laima soo dhicin sabab maxay ku dhacday xaqayga la iisoo dhiciyaa rabaani